dowladda Kenya ayaa ugu digtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay eedeynta aan cadaynta lahayn ee mar waliba ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay ku eedeynayaan in ay ku lug leeyihiin ganacsiga sharci darrada ah ee sokorta iyo dhuxusha. xogayaha difaaca ee golaha wasiirada ee dalka Kenya Rachel Omamo oo ka hadashay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha barcadbadeeda ayaa waxay ka sheegtay in eedeymaha noocan oo kala ah in ay wax u dhimi karayaan howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM isla markaasina ay dhiirigelinayaan kooxaha xagjirinta ah ee ka dagaalama Baytari Geeska Afrika. 15 bishii November ee sanadkii tagay 2017 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay ku eedeeyeen ciidamada Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo in ay lug weyn ku leeyihiin ka ganacsiga dhoofinta dhuxusha iyo sonkorta taa oo si kontraband ah loo geeyay dalka Brazil. Rachel Omamo oo hadlaysay xilli uu socday fadhiga 12aad ee shirka kooxaha xiriirka caalamiga ah ee arrimaha barcadbadeeda ee xeebaha Soomaaliya kaasi oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxay ka dalbatay kooxda in ay baaraan cidda maalgelinaysa kooxaha ka dagaalama Soomaaliya. shirkani oo ay ka soo qayb galeen 200 oo wafuud oo ka kala socotay 68 dal iyo ururo caalami ah isla markaasina soconayay muddo 3 maalmood ayaa waxay xogayaha difaaca ee dalka Kenya ka tiri waxaan fahansanahay in kooxda qaramada midoobay ay qaadatay tallaabooyin ay ku xalinayso su'aalaha la xiriira maalgelinta argagixisnimo oo ay baadigoobayaan ganacsiga dhuxusha iyo sokorta sida aanan sharciga ahayn kaga timaada Soomaaliya. kooxda kormeerka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dhawaan waxay warbixin siiyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasi oo ay mar kale ugu digayeen ku lug lahaanshaha ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya dhoofinta iyo soo dejinta dhuxusha iyo sonkorta taasi oo ka careysiisay dowladda Kenya. shirkan caalamiga ah ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa waxa Soomaaliya ugu qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mr. Ahmed Awad, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Tayyib Ruki, xogayaha guud ee golaha badweynta Hindiya iyo xubno kale oo caalami ah.